بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا الله مسلمين تمالك صونا غلس وطانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هلكا وحنكسو قد بنا إن شاء الله تعالى قصة عجيبة ودال كورين لعضي حلق النبي الله إبراهيم عليه السلام بلا سي نفترقي كو دعضي. waxaana u baahan inaan qisooyinka markaan soo sheegayno aanu ku cibro qaadano isan noqonin wax inta maqalna aan ka sii gudubno. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ahaan jiray nin aad keligiis raashin ma cuni jirin, marti buu raadsan jiray raashinka la cunto. waxaa dhacda mar kamida baa marka wuxuu waayay cid la cunto, waa uu baxay dhowr kilomitir uu raadiyey qof oo marti qaado bal markaasi wax la cuno raadiyey. aad buu deeqsu ahay. kadib ninkii soo waday waa imaadeen, raashinkii markay bilaabi rabeen buu nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam uu bilaabay bismillaah buu dhahay, laakiin ninkii kale bismillaah muusan dhihin. markaas wuxuu dhahay war maxaad bismillaah u dhihi laada? markaas wuxuu yihi maad ilaahay xustid markaad wax cunaysid. markaas ninka wuxuu dhahay waa kuma ilaahay? wuxuu yihi ilaahay ma taqaani miya? ahaa ilaah ma aqaano yiri. dabeetana iga kocdhana meesha iga baxa. waa waxay nabiyullaahi ibraahim waayo nin gaal oo mushrik oo dhahay waxaana agteeda raashinku siisan maayo, raashinkaygana cuni maayo. markuu ninkii ka tegey baa nabiyullaahi ibraahim waa loo waxyooday. waxaa la yihi ninka maxaad u ceerisay? intaas oo sano baan quudin jirnay, wax siin jirnay, asigoo nagu kufrinaya, asigoo nacaasinaya baa ilaah yihi adigana hal habeenuu kuu martiyey baad u dulqaadan weysay. nabiyullaahi ibraahim wuu ka daba caray, ninkii buu raadiyey inuu ka daba tago mar labaad marti qaado. waa u wuxuu yihi bal soo noqo, raallina ahaw, waa ku marti qaadayaa. markaasu wuxuu yihi maxaa dhacay? soo marka hore igamaad soo celin gurigaada, soo maadan iga soo anoo marti ku ah gurigaada jooga, soo xurmadi xataa inaan guriga joogo maada gara weynin, sababta maxay tahay hadda ad igu ceeso? may wuxuu dha dhib male, soo bax kaalay, waa ku marti qaadayaa. ninkii wuxuu yihi ma jirte, hal shardi baan kugu raacayaa, haddayan adiiba ay ceerisay hadeertaana inaad iwacanaysa zaa'id baan u arkaay, waxa iskaa bedelay laa ii sheegto kuma raacayo. ninkii nabiyullaahi ibraahim baa u sheegay, wuxuu ku dhahay arrinta markaan saan kugu sameeyey ilaahay baa igu canaanto saan isaan baa la yihi. markaasuu ninka wuxuu yihi oo anigu intaasoo sane aanba weligeyba caabudinba oon ku kufrin jiray oo asnaam caabudi jiray, miyuu dartay ku leeyahay adiga ku canaananaya? walla wuxuu yihi inaan rumeeyo waayo nebi ibraahim bal ibar islaamnimadiisa ilaah caabudi lahay. meeshii buuna kusoo islaamay malo wanaagsan. insha allahu tacaala halkaas aanu qisada kusoo gabagabeyn doona hadaa lidmo. hada billahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.